war degdeg ah Iiraan ayaa ku dhawaaqday in la dilo hogaamiyahoodii ruuxiga ah ee Ayatollah Cali Khamenei. Telefishinka dowladda Iiraanna waxaa laga shaaciyey geerida iyo sidoo kale in 40 maalmood dalka uu galay marxalad baroor diiq ah. Maxay ka bedeli kartaa dilka Ayatollah Cali Khamenei Iiraan? Intaas iyo in ka badan ayaan soo gudbinaynaa saaxiibayaal, balse marka hore waxaan ka codsanaynaa inaad nagu soo biirtaan inaan garna malaayiin qofoodna kaliya waxa ka dhiman idinka. Waa hagaag. War hadda ka soo baxay Iiraan ayaa waxaa lagu shaaciyey geerida hogaamiyaha ruuxiga ee Iiraan Ayatollah Cali Khamenei. Telefishinka dowladda Iiraan ayaa waxa uu si rasmi ah u xaqiijiyey inuu geeriyooday hogaamiyahoodii ruuxiga ah ee Ayatollah Cali Khamenei, halka wakaaladaha wararka rasmiga ah ee Iiraan ee lagu kala magacaabo Tasniim iyo sidoo kale Fars ay iyaguna si rasmi ah u xaqiijiyeen geerida hogaamiyihii ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Cali Khamenei kadib saacado ay horey u sheegeen Trump iyo sidoo kale Netanyahu, kuwaas oo sheegay inay duqeyn ka dhacday Tehran ay ku dileen hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan Ayatollah Cali Khamenei. Telefishinka qaranka Iiraan ayaa ku dhawaaqay geerida, waxaana guud ahaan waddanka Iiraan la geliyey baroor diiq muddo 40 maalmood ah kadib markii ay shaaciyeen in uu dhinto hogaamiyahoodii ruuxiga ah Ayatollah Cali Khamenei. Iiraan ma waxay ku tiirsaneyd Ayatollah Cali Khamenei mase waxaa jira hogaamiyaal daha gadaashiisa ah? Waa calaamad su'aal ay isweydiinayaan dunida oo dhan. Iiraan marka laga reebo Ayatollah Cali Khamenei warbaahinta si weyn ay u baratay, waxaa jira hogaamiyaal daha gadaashiisa kuwaas oo la sheegay in ay sii wadi karaan xaaladda iyo sidoo kale dagaalka lagula jiro Mareykanka, waxaana lagu soo waramayaa inaysan marnaba aysan isdhiibi doonin Iiraan, iyagoona ku tashanaya gantaaladooda iyo sidoo kale hubka dunida laga mamnuucay ee nukleerka, kaas oo laga cabsi qababa inay saacado ay ku isticmaalaan, inkastoo dunidu ay hore u mamnuucdeen in la isticmaali karin hub nukleer ah. Iiraan hadda si rasmi ah ayay ugu dhawaaqday geerida hogaamiyaheeda Ayatollah Cali Khamenei. Dunida ayaana falanqeynaysa maxaa iska bedeli kara Iiraan haddii Ayatollah Cali Khamenei la khaarijiyey. Dunida qaar waxa ay qabtaa in Iiraan la wiiqay awoodooda, balse dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda bariga dhexe ayaa aaminsan in Iiraan weli ay dagaalami karto, dalkeedana ay xureysan karto maadaama ay jiraan hogaamiye aysan warbaahinta baran, balse daha gadaashiisa ka maamulayay wax walba uu dhacayay. Inkastoo Ayatollah Cali Khamenei warbaahintu aad loogu bartay, madaxweynaha Iiraan iyo sidoo kale hogaamiyaal kale oo ka mid ah saraakiisha dhinaca ciidamada cirka, dhulka, badda ay jiraan in ay weli awood ku dhex leeyihiin gudaha waddanka Iiraan. Duqeynta ayaa timid kadib markii ay Mareykanka ay sheegeen in ay beegsadeen hooy uu deganaa hogaamiyaha ruuxiga Iiraan Ayatollah Cali Khamenei saacado ka hor ay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil ay sheegeen in ay dileen hogaamiye Ayatollah Cali Khamenei. Hase yeeshee hore ayay u beenisay Iiraan warka ka soo baxay Mareykanka iyo sidoo kale Israa'iil, balse goordhow ayaa laga baahiyey telefishinka dowladda warka la xiriiray in la khaarijiyey Ayatollah Cali Khamenei. Xaaladda bariga dhexe aad ayay u qasantay, waxaana ka jira jahwareer dhinaca dagaalka ah xilligan. Wararka aan ka helayno bariga dhexena waxay sheegayaan in gantaale ay ku sii hoobanayaan Tel Aviv, taas oo lagu kala cararay hogaamiyihii amba ra'iisul wasaarihii Israa'iil Benjamin Netanyahuna waa lala cararay, waxaana la geeyey goob qarsoodi ah asagoo ka cabsi qaba duqeymaha in ay waxyeelaan. kadib geeridii ku timid hogaamiyihii sare ee Iiraan Ayatollah Cali Khamenei, xaaladda bariga dhexe ayaa gashay xiisad cusub oo halis ah, taas oo aan la garanayn halka ay ku dhammaan doonto. Dowladda Iiraan waxa ay sheegtay in tani ay tahay bilowga dagaal weyne ka qarxa bariga dhexe. Iiraan waxa ay sidoo kale sheegtay in loo aari doono hogaamiyaheedii ruuxiga ahaa ee maamulayay Iiraan ku dhawaad 40 sano. Bayaan ka soo baxay Iiraan ayaa sidoo kale waxa lagu sheegay in duqeymaha Israa'iil iyo Mareykanka lagu dilay saraakiil iyo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska Ayatollah Cali Khamenei. Guud ahaan wadamada ay ku yaalaan saldhigyada military ee Mareykanka ayaa digniin la siiyay, waxaana la amray in ciidamada Mareykanka ee ku sugan wadamadaas in ay galaan feejignaan dheeraad ah.
dalka Jabuuti oo ka mid ah wadamada ay ku yaalaan saldhigyada military ee Mareykanka ayaa si gaar ah loo siiyay digniin ku aadan inay feejignaan galaan inkastoo aysan Jabuuti ka mid ahayn wadamada bartilmaameedka u ah Iiraan. Dowladda Iiraan ayaa la geliyay xaalad ku meel gaar ah iyadoo lagu guda jiro talaabooyinka dastuuriga ah ee lagu wajahayo xaaladda lagu dhawaaqay ee ah in dalku si rasmi ah u galay marxalad ku meel gaar ah. Iiraan ayaa guddi hogaamineed oo ay ku jiraan madaxweynaha dalkaasi Mas'uud Pezeshkian, madaxa hay'adda garsoorka iyo faqiih ka tirsan golaha ilaalinta dastuurka ayaa si wadajir ah u maamuli doonaan arrimaha dalka isla markaana hogaamin doonaan marxaladda soo socota iyagoo ku shaqeynaya qodobada uu dhigayo dastuurka Iiraan. kadib sheegashadii Netanyahu iyo Trump, dowladda Iiraan oo xaqiijisay geerida hogaamiyahoodii ugu sareeyay. Haddaba maxaan ku ognahay taariikhda Ayatollah Ali Khamenei? Khamenei wuxuu ku dhashay sanadkii 1939 magaalo la yiraahdo Mashhad oo dhacda waqooyi bari dalka Iiraan. Hogaamiyahan ayaa loo tiriyaa inuu ka soo jeedo qoys diineed xilli aabihii oo ahaa wadaad lagu qadariyo faafinta diinta Islaamka. bilowgiisii siyaasadda sanadihii 60-meeyadii wuxuu ka soo galay dhanka mucaaradada asigoo aad uga soo horjeeday nidaamkii boqortooye ee ka talinayay xilligaas dalka Iiraan. sanadii 1981 wuxuu noqday madaxweynaha dalka Iiraan ilaa 1989. isla sanadkaas 1989 geeridii Khamenei weynaa wuxuu la wareegay talada hogaanka ugu sareeya ama hogaamiyaha ruuxiga ah ee dalka Iiraan. 36 sano ee la soo dhaafay wuxuu ahaa caqabad ugu weyn ee bariga dhexe ka wajahayso Israa'iil. sidoo kale wuxuu ahaa awood muuqata oo mantiqada bariga dhexe si weyn ugu soo shaacbaxday. haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay, Iiraan ma waxay qaaday wadadii burburka mise waxaa u diyaarsan bedelka Ayatollah Ali Khamenei? Dowladda Iiraan ayaa si ku meel gaar ah ugu magacaawday Ayatollah Ali Riza Arrafi inuu noqdo hogaamiyaha ruuxiga ah ee Iiraan kadib geeridii ku timid hogaamiyihii sare ee dalkaas. Arrafi waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii ugu dhawaa hogaamiyihii geeriyooday Ayatollah Ali Khamenei, waana mid ka mid ah shakhsiyaadka ugu mayalka adag ee ka tirsan hogaanka sare ee kacaanka Iiraan. waa kuma Ayatollah Ali Riza Arrafi. waxa uu ku dhashay sanadkii 1959 magaalada Maybad ee gobolka Yazdi ee bartamaha dalka Iiraan. aabihiis Maxamed Ibrahim Al-Arrafi waxa uu ahaa khudbad jeediye iyo qoraa, wuxuuna saaxiib dhow la ahaa Ruhollah Khamenei oo ahaa ninkii aasaasay kacaanka Islaamiga ah ee Iiraan. Ayatollah Arrafi wuxuu waxbarashadiisa dhinaca diinta ka bilaabay dalkiisa kadib markii uu bartay qaar ka mid ah casharada suugaanta. sanadkii 1970 ayuu u guuray magaalada Qam ee dalka Iiraan, halkaas oo uu ka dhameystay waxbarashadiisa. isla waqtigaas waxa uu bilaabay inuu qaato seminaaro iyo koorsooyin cilmi kororsi ah, kuwaas oo si degdeg ah uu u dhameystay. sanadahaas wuxuu si ballaaran uga qayb galay duruusta iyo koorsooyinka falsafada ee furan, wuxuuna ahaa arday ku wanaagsan waxbarashada. akhlaaqdiisuna aad ayay u ammaaneen macallimiintii waxbaraysay. luqadda Carabiga iyo Ingiriiska ayuu bartay, wuxuuna wax ka bartay xisaabta iyo falsafada reer galbeedka, isagoo akhriyay buugaag badan oo ka hadlaya xisaabta iyo falsafada reer galbeedka. Ayatollah Arrafi wuxuu ka soo shaqeeyay xafiisyada waxbarashada iyo jaamacadaha, isagoo markii ugu dambeysay ka mid ahaa hogaanka sare ee kacaanka Iiraan. waxaana maanta oo taariikhdu tahay 1 Maaj 2026 loo magacaabay inuu noqdo hogaamiyaha sare ee kacaanka Iiraan kadib geeridii ku timid Ayatollah Ali Khamenei.